السلام عليكم daawadayaasha ku xiran channelkeeda Dr. Jiya kusoo dhawaada mawduuceena maanta 6 waxyaabood oo ilaaliya caafimaadka indhaha fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar like inoo dheh haddii aad ka mid tahay asxaabta hore nala joogteen fadlan muuqaalka inoo like waxaan idin soo gudbinayaa talaabooyinka fudud isla markaana dhaxalgalka u ah ilaalinta caafimaadka indhaha waxaa ka mid ah kow waa in aad cuntaa khudaarta cagaaran saladka iyo wixii la midka ah 2 isticmaal fitamiinaadka kala duwan sida vitamin A vitamin E iyo vitamin C iyo fitamiinad kale oo wanaagsan indhaha 3 waa in aad in badan isticmaashaa saliidda kalluunka 4 cabida shaaha oo kaalin weyn ka qaata biyaha ka yimaada indhaha 5 waa in aad xirataa ookiyaalaha loogu talagalay qoraxda xilliga ay kulushahay oo loo yaqaano solarka 6 waa in aad siisaa indhahaaga waqti ku filan oo nasiina ah haddii aad qaadato talaabooyinkan ku soo sheegay si saxan waxay ka caawinaysaa indhahaaga in ay helaan caafimaad wanaagsan insha Allah biidnillaahi kariim